oo inoo sheegaya inuu marmarsiyo darteed tixda u bilaabay. haddaba intaas kadib bal taariikhdii Timcadde iyo dhinaca Somaliland oo markaa Ingiriisku gacanta ku hayay aan inoogu wareejiyo Cabdilaahi Maxamed Cali oo halkaa inooga ambaqaada. Timcadde waxa uu halgankiisii taaba qaaday oo uu xoogaystay markii uu ku soo noqday Somaliland oo uu Ingiriisku gacanta ku hayay xilligaasi. isla markiiba wuxuu Timcadde hormood ka noqday oo uu u jeeni qaartay dagaalkii kululaah ee lagula jiray gumaystayaashii dhulka Soomaalida isku ballaariyay. waxa uu giraaradiisii ku galbiyay weerarkii ay wadeen xisbigii wadaniyiinta ahaa ee la odhan jiray SNL Somali National League oo xubin firfircoon ka noqday kadib markii calanka la qaatay sanadkii 1960kiina waxa uu Timcadde ka tirsanaa xisbigii la odhan jiray SDU ama Somali Democratic Union. waxay dadka fagarayaasha xisbiyadu isugu soo baxaa aad ugu khushuuci jireen markii uu Timcadde mikrofoonka qabsado ee uu codkiisa libaaxnimada ahaa ku luuqeeyo giraaro wadanimo ka muuqato. mudane Axmed Yuusuf Ducaale oo ka mid ahaa hogaamiyaashii siyaasadda ee waqtigaasi wax ka weydiinay arrinta waxa uu noo sheegay in dad badani ay isugu soo bixi jireen fagarayaasha uu Timcadde ka gabayo. waxaanu ku tilmaamay sida tan: markaa waxa kaloo ilaahay hayba u siiyey oo aad iyo aad u gabayaa siday u leeyihiin kaga duwanaa. wuxuu lahaa luuq cajiiba oo aanad is odhanaynin luuqdaasi xooggeeda laab bani aadam ayay ka soo baxaysaa oo af bani aadam iyo carab iyo laba dabnood baa soo gudbinaya. waxaad moodaysaa luuqdaasi luuq mashiin soo tuurayo. marmar baa is odhanaysaa Cabdilaahi Suldaan Allah u naxariistee mikrofoonba uma baahna. qofka u dhow iyo qofka ka fog labaduba siday u wada maqli jireen. gabaygiisana waxaan qabaa waxyaabaha tisqaadka siiyey inay ka mid tahay luuqdiisu, waayo luuqdiisaasoo xoog weynayd iyo erayada oo si sahlan oo fudud uga soo baxayay oon degdeg ahayn ayaa dadku markay ka dhaqaaqaan goobta uu ka gabyaayo ay dhici jirtay dad badan oo dhowr bayd ka xafiday tixda uu maanta meeshaa ka tirijay inay halkaa ka dhaqaaqaan iyaguna ay sidaa ku tabiyaan. marka Cabdilaahi Suldaan wuxuu ahaa fagaaraha uu ka gabyaayo marka la joogo qof markuu gabyayo dadka aad moodo in roob ku da'ayo oo qof is dhaqaajinaya aanu jirin, amba aad moodo xoolo darkii lagu soo horayoo biyihii cabbayo oo neefna aanu neefka kale eegaynin. fagarayaashaasi uu Cabdilaahi Suldaan Allah u naxariistay uu ka gabi jiray oo inooga warramay Axmed Yuusuf Ducaale waxaa si weyn uga faa'iidaysan jiray asxaabtii loolanka ku jirtay in ay ka faa'iidaystaan dadkaasi faraha badan ee dhegaysanayay Cabdilaahi Suldaan si ay u gaarsiiyaan fikradahooga. Timcadde badi lixmadayadii waxa uu deganaa magaalada Hargeysa oo halganka gumaystaha lagula jiray udubdhaxaad u ahayd. Timcadde sanadkii 1967 ilaa 1969 waxa uu ka shaqayn jiray Radio Hargeysa oo giraaradiisii midnimada iyo wadanimada salka ku hayay ka sii waday. bal iminkana aynu eegno Timcadde iyo 60kii waxa uu yidhi: Cabdilaahi Timcadde waxa uu ahaa nin u go'ay halgankii loogu jiray xornimada intii 60kii ka horeysay. wax kale iska dhaafo xataa reerkiisii ayaan inta badan arki jirin oo u bohliyoobay. nasiib darro badi gabayadii iyo geeraaradii uu Timcadde tiriyey wakhtigani halganka xornimada loogu jiray way lumeen oo cajalad laguma duubi jirin ee waxa uu si toosa uga akhri jiray goobaha fagaarayaasha ah ee ay asxaabta gobonnimo doonka ahi bandhigyada ku samaysan jireen. haddaba annagoo intii nooga suurta gashay soo ururinay bal waxaan jecelahay inaan iminka idiin akhriyo gabay sida runtaa qurux badan oo la yidhaahdo kala qaayafoga aan idhaahdo weliba waa maanso
maansadan waxa uu timacade geeraarkan ku sifaynayaa faraqa u dhexeeya qofka islaamka ah iyo kan gaalka ah, farqiga u dhexeeya meel abaari ku habsatay iyo dhul barwaaqo ah, iyo farqiga u dhexeeya shacbigii xornimadooda u halgamayay iyo dhuuniraacyadii gumaystayaasha dabadhilifka u ahaa. waana tan dulucda dhabta ah ee uu uga dan leeyahay ararta hore. bal haddaba aan idiin bilaabo geeraarkii kala qayafoga. waxa uu yidhi abwaanku, nin qur-aanka xambaarsanoo u qalqaalay yaraanoo qaadirkiin fahmo siiyeyoo qumaati u fasiraayiyo kiristaan khamri haysto oo allihii qaadir ahaa iyo qiran waaye rasuulku, bal qabsoo labadaasi kala qaayafoga. kalil qiiqday abaariyoo samadaa qaradaa leh, qarin weyday daruuriyo qarjafroob ah la waayayoo qablan xoolaha laayiyo qari meelay ku hoortay oo qulqulaysa xareeduyoo kayntu qoortay isgoysayoo qariibkii socoteeyaba qorob dhay ah la siiyeyoo qosoluu ka dhegsiiyey, bal qabsoo labadaasi kala qaayafoga. muuminiinta qamaantay ee dhammaan qiiradu hayse ee isticmaarka qalaad iyo birtan qoobabka gooyay ee qudhiisii kari waayiyo qalbituugan gaboobay ee qayilaad galabeed iyo dhulkeennii qada siistay qasdiilaa la yidhaaye, bal qabsoo labadaasi kala qaayafoga. sanadkii 1960 markii la caleemo saaray calankii ugu horreeyey ee dhidibada loo taago ee dadka Soomaaliyeed ay yeeshaan, cabdilaahi suldaan habeenkaasi si weyn ayuu uga muuqday. waana kan Idris iyo Axmed Yuusuf Ducaale oo inoo sii faahfaahiya. axmedow xasuus baad run ahaantii reebtay inaad ka sheekaysay allaha u naxariistee cabdilaahi suldaan. mar haddaad sanadku markuu ahaa dhowr iyo kontonaadkiina aad wada fadhiisanayseenna, soomaalida ayaaba dee taariikhdeedii ama mahmahdeedii jidma la martay jidiidna la cuntaydii ahoo cid kaaga dhowi haddii lagaaga dhow yahayna kollayba ma jirto. laakiin bal aniga qudhaydo aan maskaxdayda dib u yara celiyo oo lixdamaadkii aan sare ugu soo qaado. xisbi oo waaweyn baa dalka jiri jiray, adna waxaad ahayd nin siyaasiya, isaguna wuxuu ahaa gabayaagii wakhtigaasi ka jiray. bal fagaarayaashii la iskugu soo bixi jiray, gaar ahaanna markaan soo dhoweeyo habeenkii calanka la saarayey, adiguna siyaasi aad ahayd, siday idinla muuqatay ereyadii uu halkii ka tariyey cabdilaahi suldaan? waxaad odhan kartaa dareenkiisii iyo halgankiisii oo la isku daray, gobodoodii waxay ku soo ururtay kaana siib kana saar. wuxuu ku sawirmay cabdilaahi suldaan tixdaa markuu tiriyey nin wixii uu soo halgamayey ay midheeyeen oo gaadhay oo haleelay, dabeetana ay la noqotay waxoogaa inuu yaro nasto intaanu marxaladda taa xigta ee halganka gelin. markaa tixdaasi waxay noqotay tix caana oo gabayadiisa si gaara uga muuqata oo tis qaaday, gabaygiisuna guud ahaan tisqaadka wuu lahaa. ilaahi suldaan timcadde waxaan ku xusuustaa anigu maalintii kana saar ka nasiib. de horta jawigaasi mar imakaan xusuusto de waxbuu ila yahay, laakiin maalintaa de waan yaraa oo aada umaan weyneyn, oo de maanta si aan u qiimaynayo timcadde wuxuu ahaa umaan qiimeyneyn maalintaas. laakiin waxaanu arkayay dee nin wanaagsan oo dadka shucuurta wada hayso, dadka wada faraxsanyo dee xaafadayadii faraxsanto, magaaladu faraxsanto, dadka faraxsan. On the battlefield and in the political arena. Finally, on June the 26th, 1960, Britain withdrew from the Somali Protectorate. And on the day the Italians left, July the 1st, 1960, the Somali Republic was declared with 5 million people and a land area of 262,000 square miles. The longed-for day of freedom had dawned at last. But what would it bring?